بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ويد السلام ولا له channel كنا كوحدة سمكو كنا culture انت هبين وناكسن انت معلومتين معلومة وناكسن كور كستا iyo goob kasta inuu joognana Allah subhanahu wa ta'ala khayr bayn weydiisanayna walaalaha cusub waxa la soo dhawaada walaalihii horena soo dhawaada channelku waa channelkiini ma sha Allah samku kan aan culture waa dhaqankiini waa cuntadiini waa hidihiini waa afkiini idinka iskale waana ku mahadsantiin share-ta iyo like-ta iyo subscribe-ka iyo comment-ka quruxda badan ee meel walba gaarsiiseen channelkeeni jazaakumullahu khayran baan idin dhamaantiin wiilal iyo gabdhaba inta ka bacdi walaalayaal maanta waa maalin axada maalin kasta axadana waxaynu soo deenaynaa hadii la haydmo barnaamijka murtida afka hooyo inta badan waxaynu ku soo deenaa maahmaaho kelmado iyo hal xidhaalayaal iyo waliba hadalla xikmadaysan oo aynu isu diro hadhowna si fiican looga soo jawaabo waxa xusid mudan kelmadii u dambeysay ama maahmaahdii u dambeysay saaka in habla si fiican uga soo jawaabeen ma sha Allah komanka hadda akhrisataan cilmi dheer bay soo raaciyeen kelmadii ahayd barti yaqaan bari uma korodho aad iyo aad bay si qurux badan bay uga soo jawaabeen ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxaanay soo sheegeen inuu yahay qof aan horumar gaadhin oo weligii meel u taagnaado iyo waliba ma sha Allah waxay soo raaciyeen kelmado kale aad u qiimo badan cilmi badan baa ku jira waxa rajeenayaa ina comment ka akhri doontaan ku noqon doontaan taasi waa ta kale walaalayaal maanta waxaynu haynaa insha Allah taala maahmaah cajiib leh oo saddex la ah maahmaahdaasu rag baa ku yaani kelmadahan noqonaysa laakiin waa rag iyo dumarba waana maahmaahad moodaynay aad umadeena Soomaaliyeed inoo qosayso ama aynu nahayba sidan maahmaahdan u tahay maahmaahdu waxay tahay saddex baa rag u liita waa matoshe matashade iyo matashiishe matoshe ayaa rag u liita matoshe wax cusubna ma soo saaro wixiisa hore ka humooba ama ku duugoobana ma ragcado ma hagaajisto farsamaba male waxaanad moodaa taas inay imka aad inoogu badanto haddaynu Soomaali nahay warshada ma lihin oo wax allaalo waxaynu leenahay habeeraatay ma jirto waxaan ku kabta dacasa iyo bariiska iyo marada iyo mid kasta waa la soo dhoofiyaa kay ka xumaataba inaan xataa dibusi ka raacano maalin walba wax arkaysa tii waxaan ku qofku wuxuu bedelaayo ta labaad waxa weeyaan matashade ma isku tashano yaani haddaynu tashanayno oo aynu tashanayno tala leenahay maanta heerka maynaan gaadhneen caalamkana kamaynaan dambayneen yaani dad baa aad arkaysan maanta dayax gacmeedka higsanaya ama dhaafayba ama rababa sanadada inay soo socdaan inay dayax duusiisa deegaan inaguna arladii ilaahay nagu abuurayba wax allaala waxaynu ka tabcanayna ma jirto mana ka tolano mana ku tashano ta saddexaad waxa weeyaan matashiishe waynu inagu haddaynu nahay umadeena Soomaaliyeed haba yaraatay wax allaala waxaynu yaani leenahay oo tashiisho yaani maanta waxa weeyaan qofku maanta wuxuu helo biri isaga shaqadiisa maaha waa maanta uu joogaa biri kama fakiraayo halka ummadaha qaarkood ay kooranayaan 100 sano soo socda ilmaha yaga iman doona ayaan uga sii fikreynaa waxaas oo waxaan ku ay horumar ku gaarayeen iyagaba iska laween naftooda maanta ka fikiraan nafta biri ka imanaya inay ka fikiraan 10 sano inay ka fikiraan 100 sano soo socda halku dad waxaan ku waxooda u sii diyaarsan yahay inagu ma jirto hadduu maanta qofkeena Soomaaliga helo khalaas way ugu dhan tahay marka matoshe gabadh baa yana imanayso matolatay noqonaysa haddana waxay noqonaysaa matashiishato waxay noqonaysaa haddana matashato marka rag iyo dumarba waynu ka simanahay waxaana rajeenayaa maahmaahdaasu inay wax badan inaga bedeli doonto haddii la haydmo waayo qofka bini'aadanka inuu tasho wixiisa hagaajisto way u wanaagsan tahay inuu tashadana way u fiican tahay qofku oo xaq u socdo iyo wuxuu u jeedo uu tashado umar walba naftiisa isku tashado maxaa ku fiican maxaa ku xun maxaa wax ku yeelaya maxaa wax ku taraya inuu tashiishana way wanaagsantahay wixii Allah subhanahu wa ta'ala siiyo si uu baahida bini'aadanka uga fogaado taana way u wanaagsan tahay hadoo maahmaahdan maanta idin diray hal xiraalahi waatan Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa haani kunbay ka tolantaa macnaheeda waxaan rajeenayaa inay soo raadin doontaan haan markaan idin leeyahay haani kunbay ka tolantaa anigu tii caana lagu shubay idin ma diran tiis waxaan ku oray ciirta lagu loolayana idin ma dirin haantaas bal maxaa laga wada haantu maxay tahay si haddii gunta ka tolanto maxay noqonaysaa haddii haanta kor ka soo tolaba maxay kaga duwan tahay haddii kor laga tolo insha Allah taala waxaan rajeenayaa kasoo jawaabi doontaan
intaynu dib u kulmi doono share iyo like iyo comment iyo subscribe ka quruxda badan waa xaqiina waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh